madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo wasiirro la socday ayaa maanta booqday xerada qaxootiga ee Calais sheegayna inuu cadaadis ku saari doono dawladda Britain in ay ka aqbasho tiro dheeraad ah qaxootiga ku sugan waqooyiga Faransiiska wuxuu kaloo sheegay inuu weydiin doono dawladda Britain inay kordhiso lacagaha la gelinayo sugitaanka amniga iyo horumarinta magaalada dekada leh waxaa lagu gorgortamayaa heshiiskii 2003 ee u dhaxeeyay UK iyo Faransiiska kaasi oo dhigaya in xuduudda UK ay ka soo bilaabato dhulka Faransiiska Ahmed Aadan ayaana ka waramaya way adkayd in la arko laakiin weli waa kuwan geedaha hoostooda ayay joogaan way qoyan yihiin wayna qarqarayaan mana sii dhaqaaqi karaan waxay ka imaadeen Eritrea Ethiopia Afghanistan Iraq dhowr mayl ayayna maalin kasta socdaan ayagoo cunto iyo hoy raadinaya iyo fursad ay ku baxaan James waxa uu ka yimi Cameroon ma doonayo in wajigiisa la arko Calais wuxuu joogay 6 bilood caafimaadna ma haysto waxaa jira sababa ii gaar ah oo igu kalifay inaan dalkaygii hooyo ka imaado Yurub imaado marka waxa weeyaan sida ay laakiin noola dhaqmayaan ma aha si wanaagsan mana aaminsani inay halkan ka jirto banaanimo dalkan France maanta xiradan Calais waxa ku sugan ilaa 600 ama 700 qaxooti ah oo run ahaantii ku nool xaalada xun ma ogtahay saacadaha qaar maalmaha qaar in wax walba laga qaato oo ay arkaan ayaga oo aanan haysan wax ay ku noolaadaan madaxweyne Macron wuxuu yimid inuu xaaladda indhihiisa ku arko si muhaajiriinta looga joojiyo inay tagaan caasimadda gobolka Aras wuxuu shaaca ka qaadi doonaa sharci cusub ee socdaalka markuu yimid Calais kadib wuxuu doonayaa in Britain uu kaalmo dheeraad ah weydiisto madaxweynaha markii uu gaaray Calais waxa uu la yimid fariin uu kaga hortagayo dhaleecaynta booliska iyo dhibka magaalada waa muhiim in hoosta laga xariiqo nolosha dhabta ah ee aynu ku noolayn sannadadii la soo dhaafay ka hor intaanan la kulmin Theresa May xeradan oo ay u yaqaanaan kaynta waxaa la dumiyey 15 bilood ka hor dadkii deganaa waxaa la geeyey xeryo dalka oo dhan ku yaala balse Calais weli waa sida birqabato haddii xerada la gubo laguma joojin karo qaxootiga tareenka iyo doomaha ayaa la adkeeyey Britain ayaana lacag badan ku bixisay laakiin gawaarida xamuulka iyo tahriibiyayaal ayaa weli dadkan gudbiya dhibaatada tahriibta ee Calais waxay u muuqataa joogto dawladda waa ay xallin waysay marka madaxweynaha uu qadkan ka gudbo Khamiista wuxuu la sii tagi doonaa dalabaad badan